maanta halkan shirkan jaraa'id waxaa isugu yimid xildhibaanada aan iraahdo aqlabiyadda beesha Digil iyo Mirifle ee ku jira baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan rabnaa dhowr fariin inaan halkan uga gudbino wixii xaqiiqda jirana aan kaga hadalno shacabka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ah walaalkeen oo ka soo jeeda beeshan Digil iyo Mirifle. waxaan rabnaa marka hore inaan shacbiga Soomaaliyeed u xaqiijino. waxaan maqlaynay maalmahan dambe in la leeyahay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa soo abaabushay mooshin. shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinaynaa in muddo dhowr bilood ah uu mooshinkan soo socday ayna abaabulkiisa iyo shaqadiisa ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka golaha shacbiga ee Soomaaliya ayna ugu horeeyaan xildhibaanada hadda aqlabiyadda ah intooda badan ee halka fadhiya ee ka soo jeeda beesha Digil iyo Mirifle. marka waxaan rabnaa inaan xaqiiqda u cadeyno ma ahan barnaamij xukuumadda ay ka dambayso, waa barnaamij baarlamaanka uu ka yimid una ku wajahan walaalkeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka soo jeeda beeshan. mana ahan shalay waa la doortay 4 sano soo dhameystay mar kale dib loo doortay maanta laakiin cilado jira iyo khaladaad isaga uu ka galay dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka awgeed markay xildhibaanada Soomaaliyeed iyo xildhibaanada beeshan ay arkeen ayay mooshinka soo jeediyeen. marka taas inay xaqiiqda u cadaato rabnaa. waxaan kaloo aad uga xunnahay oo uga tacsiyadeynayna ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ciidanka qaranka ah oo habeen imaalin u soo jeeda inay nabadgelyada wadankan ay ilaaliyaan oo shaqadoodana ay dad gaar aysan ahayn kulligiis dhan ay wada mas'uul yihiin. markii ciidanka booliiska meesha la geeyay in lagu tilmaamo jabhad niman ah oo ciidankii baarlamaanka ay qabsadeen. ciidankaas waa ciidankii booliiska Soomaaliyeed. booliiska iyagana ismaamula annagayna habeen imaalin u soo jeedaan nabadgelyada. marka haday dhinacaas khalad idin kaga yimid walaalkeen inuu maartay ihaanada ciidankaas magacooda lagu sameeyay waxaan u jeedinaynaa cudurdaar naga raali ahaada lamana qabno waana idinkaga cudurdaarin haddaan nahay beesha ka soo jeedo gudoomiyaha baarlamaanka hadalkaas ka soo yeeri. midda saddexaad oo halkan rabay inaan ka cadeeyo waxay tahay gudoomiyaha shalay waxaa doortay 142 xildhibaan soo ma ahayn 142 cod buu ka helay markii doorashada 275 baarlamaanka lagu doortay 142 cod uu ka helay 141 buu ka helay cod. maanta in ka badan intii isaga ku dooratay baarlamaanka codku ka helay ayaa mooshin ka keentay. intaas in ka badan tiro ilaa iyo 200 ku dhawaad ah ayay maanta gaarsiisan tahay intii mooshinka marka hore ka keentay iyo taageerayaasha mooshinka oo iyagana hadda maanta diyaarka u ah inay mooshinkaas ay taageeraan. marka walaalkeen waxaan talo u soo jeedinaynaa wayna dhibaysaa maadaama uu beeshan ka soo jeedo in la xagxagto muddo uu soo shaqeeyay waa nin oday ah oo annaga naga soo jeeda muddo wadankan soo joogay maadaama eedeen loo soo jeediyay uu baarlamaanka maanta u baahan yahay waxa la gaaray xilligii baarlamaanka uu dooran lahaa ama uu hogaamin lahaa cid ay ku kalsoon yihiin xildhibaanada. mar haddii baarlamaanka shalay adiga 142 kugu soo doortay tiro ku dhawaad 200 maanta ay ku leeyihiin gudoomiye naga raali ahaw in haddana aad ku adkaysatid oo maaragtay aad leedahay weli maaragtay dagaal kale aad iyo khalalaaso kale siyaasadeed aad ka dhex abuurtid baarlamaanka gudihiisa gudoomiye annaga wayna dhibaysaa arrintaas sharaftaada in loo dhimana wayna dhibaysaa. waxaan kuu soo jeedinaynaa maadaama aan nahay aqlabiyadda xildhibaanada beesha Digil iyo Mirifle ka soo jeeda gudoomiye inaad iscasishid ihaanada iyo sharaftaadana inaan waxba loo dhimin adigoo baarlamaankaas intaad soo dhex istaagtid da'daas jira muddadaas soo shaqeynaysa xilka meeshaas lagaaga qaado. shalayba 142 ku soo dooratay maanta 200 tiro ka badan ayaa kaas wartay ku leh gudoomiye mooshinan ka keenay sharafta ka xig reerka aad ka dhalataan nahay Digil iyo Mirifle nahay aqlabiyadooda waan ognahay qayb kale maartay inay wanaga soo horjeedin inay jiri karaan laakiin waa aqlabiyadii Digil iyo Mirifle xildhibaanadooda waa u jeedaan meeshii fadhiyaan. gudoomiye waxaan ku leenahay iscazil. waxaa sheegay xuseen maxamuud sheekh xuseen anigu waxaan caddaynayaa oo aan rabaa inaan bayaaniyo golaha shacabka
iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed aan ku wargelinaynaa u sheegaynaa waxay tahay mooshinkan haddiiba uu jiro mooshin xalaal ah waxaa weeyaan kan baa la dhihi karaa ugu mudan maxaa yeelay baarlamaanka ayuu ka dhashay isagoo dhexdiisa la jooga ayuu ka dhashay xukuumad shaqo kuma lahayn 3 bilood iyo ka badan ayaa uu socday 4 bilood meelahaas marka mooshin xildhibaanada baarlamaanka ay keenan bilaabeen weeye waana maxaan ku raarin ay xaq u leeyihiin marka shubhada ah ama tuhunka ah meel kale iyo xukuumad iyo xafiisyaal laga soo abaabulay wax jira ma aha waa mooshin xildhibaanadu keeneen waana maxaan ku raarin ay xaq u leeyihiin oo ay ku cabirayaan ra'yigooda si looga doodo mas'uuliyadda gudoomiyaha ayaa loo keenay taas waxa weeyaan waa caddayn talabaad gudoomiyuhu waxa weeye ma aha ninkii mooshin sharci ah oo si waafaqsan habraaca iyo xeer hoosaadka lagu keenay ninkii ka warwareegi lahaa u raadin lahaa durib iyo maxaan ku raahdaa waxaan jirin sheegi lahaa maaha waa nin waaya arag ah waa nin aqoon-yahan ah waa nin qaanuun yaqaana waa nin 5 sano soo daadiinayay golaha baarlamaanka marka waa ceeb in uu ku kalsoonaan waayo xildhibaanadii uu maamulhayay isla markaasna mooshinkii sharciga ahaa oo waddada sharciga loo soo maray inuu duro marka taasna waxaan leenahay gudoomiyuhu lagama filaynin in maxaan ku rahaa arrin sharci ah isaga hadda si toos ah uga hor yimaado uga warwareegto marka waxaan leenahay mooshinka inuu sharci yahay inuu caddeeyo ogolaado kuna kalsoonaado xildhibaanadiisii iyo wixii uu ka helo haddii uu sugahayo ilaa laga codaynayo isagay jirtaa laakiin sida walaalkay u sheegay waxaa u sharaf badan in hadda uu isaga tago oo maxaa yeelay nin oday ah weey muddo soo shaqeeyay way jagooyin badan soo maray wasiir agaasimo guud wasiir ku-xigeen gudoomiye baarlamaan magac kasta wata marka intii uu hadhow toole wejigabaxa dhici lahaa annagana maxaan ku raahdaa wejigabaxaas lama rabno inuu hadda ayuu fursad haystaaye uu iska tago oo markaa taariikhda meel fiican uu ka galo wixii dhaliil ah ee loo hayay oo dhinacyo badan taabanaya oo dhan waxaa yacni qarinaya haddii hadda uu ka tago laakiin maalinta baarlamaanka la keeno waxay noqonaysaa dhaliilihii lagu eedaynaya oo dhan in bannaanka lasoo dhigo marka nin oday ah weeye waxaan runtii kula talinaynaa inuu arrintaas ka hortago oo uusan maxaan ku raahdaa sugin waktigaas taas saddexaad aan ku soo koobaya waxay tahay waxaa weeye moshinku sida la og yahay habraac buu marhaya gudoomiyuhu waa gudoomiye laakiin xilliga mooshinka markii la keenay ilaa lagu kala baxayana isaga howl uu ku leeyahay maamulka guddoonka baarlamaanka iyo dhaqaalihiisii iyo amnigiisii waxaasoo dhan ma jiraan marka waxa weeyaan ayaamahan haska nasto hawshiisii waxa weeyaan si ku meel gaar ah ayaa maxaan ku rahaa ninkii ku xigay loogu dhiibay marka taasna anaa wax maamulhaya iyo maxaan ku raahdaa maalinta aan mooshinkayga laga hadlayo keli ah ayaan hoos fadhiisanaya inta kaleeto anaa hawshayda wadanahay wax jira maaha dadku maxaan ku raahdaa caqli bay leeyihiin sharcigana way yaqaanaan intaasaan kusoo gunaanadahayaa waxaan u rajaynayaa inuu maxaan ku raahdaa si xushmad leh oo ugu tago kursiga haddii hadda uu samayn waayana de waxa weeyaan wixii ka yimaada haddii ceeb iyo wejigabax ah inkastoo annagana nagu dhacayso laakiin isaga inuu u diyaar garoobo taasna isagaa iska leh laakiin annaga wixii talo walaalnimo ah waan siinay asalaamu calaykum waraxmatullah ee iga horreeyey waxaan rabaa inaan sii ifiyo arrintaydaa sii adkeeyo oo muxuu ahaa wixii iga aadanaay aan ka iraahdo mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka laga keenay ama soo jeedinta guddoomiyaha baarlamaanka laga keenay waxaa keenay sida laydin sheegay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed oo isku jira xaq baynu u leeyihiin xeer hoosaadka
baarlamaanka iyo dastuurka qabyada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labada ayaa loo raacay marka xildhibaanada xaq bay u leeyihiin cidda shir guddoominaysa inay muxuu ahaa ay go'aan ka gaaraan inuu usii joogayo iyo in muxuu ahaa iska bedelayaan oo qof kale ay dhexdooda ka dooranayaan khiyaar bay u leeyihiin waa normada caadiga ah ee baarlamaanka uu ku dhaqmo waaye guddoomiyaha baarlamaanka annaga sida la sheegay walaalkeen wuxuu ka soo jeedaa beeshaan uu ka soo jeedaa Soomaali baa dooratay haddana Soomaali baa ka keentay laakiin cabashooyinka ugu badan ee xildhibaanadu ay ka qabeen dadka ay ku soo hormarayso loo keenayo oo muxuu ahaa loo soo bandhigay ayaan ku jirnay maadaama ay nixijinayaan kastoo aan la kala xigin waxay ku salaysan tahay eedeymahaasi dhismihii guddiyada baarlamaanka sidii loo dhisay bay xildhibaanada ka cawdeen waxay ka cawdeen maamulka miisaaniyadda baarlamaanka waxay ka cawdeen maamulka ajandada kala gedisan ee fadhiyada baarlamaanka la hor keeno oo ay ku tilmaameen ama loo wada arkay baarlamaankii sagaalaad baan soo joognay guddoomiyaha isaga guddoomiye ahaa ajandooyinka sida loo maamulayo waa la arkaya ajando sahlan oo si sahla lagu dhamayn karo ayaa ummadda Soomaaliyeed runtii aad ay u dhibsanayeen sida loo maareynayo yani ajandadii waxaa qasab noqonaysa in khilaaf iyo buuq wax badan ku kaca oo ummadda Soomaaliyeed aan ka go'in ku kaca ayay ajandadu noqonaysa taasna waxaa u sabab ah oo xildhibaanada mooshinka keenay ay ku sababeynayaan oo dadka dhan ay og yihiin guddoomiyihii oo muxuu ahaa ajandada dhinaca haa iyo dhinaca maya ama dadka taageersan ama dadka diidan aaraada lagu kala duwan yahay waa dimuqraadiyad dadka kala raacsan qolo walba guddoomiyihii waxay u arkayaan in uu muxuu ayaga ka mid yahay markay la kulmaan taa ayaa waxay keenaysay inay dadka ku dhiiradaan in qolo walba mowqifkeeda ku adkaysato aan la isku tanaasulin ajandihii wuxuu noqonayaa marka mid qaali ah oo la isku dilo oo dalka kala qaybiyo waxyaabahaas iyo kuwo badan oo guddoonka shaqadiisa aan ka mid ahayn oo guddoomiyaha baarlamaanka looga cawday lagaga sheegtay ayaana soo gaaray xildhibaanada guddoomiyaha baarlamaanka garabkiisa oo isku meel laga soo doortay oo isku deegaanka ka yimid haddaan nahay ee qaranka Soomaaliyeed matalaya waa qaadi weynay waa naga dhageysan waayay muxuu ahaa wixii asaga u gaarka ayuu iska watay ajandaha baarlamaanka iyo nidaamka baarlamaanka iyo maamulka baarlamaanka ayaa laga raray hoolka baarlamaanka guddoomiyaha waraaqu soo saaraa iyadoo aan baarlamaanka go'aan gaarin guddoomiyaha shirar buu qabtaa wuuna ka hadlaa go'aan buu sheegaa meel ay wax ku dhamaanayaan buu sheegaa iyadoo aan baarlamaanka go'aansanin taasna baarlamaanka hoggaankiisa looguma talagelin guddoomiyaha waa la soo doortay isku meel baan ka soo wada baxnay xildhibaan kasta 275 ka mid ah sida loo soo doortay baa loo soo doortay xildhibaan walba wuxuu matalaa deegaan iyo tuulo iyo muxuu ahaa reer asagana sidoo kale reer saas uu matalaa marka guddoomiyaha shaqadiisa waxa waaye aad bay u kooban tahay dastuurkay ku qoran tahay xeerosaadkay ku qoran tahay haddii iyada lagu soo koobo dalka khilaaf kama dhaceen xildhibaanada isma qabsadeen mooshinna lama keeneen horta haddii xadkii loogu talagalay laga baxo waxay keenaysaa muxuu ahaa istoosin in la keeno marka qofkana in la toosiyo hadduu diido dhibaatadeeday leedahay hadduu iscasilayo sida la sheegay walaalkeen waa u soo jeedinaynaa hadduusan iscasilayninna in nidaamka dimuqraadiga ee sharciga uu hoggaansamo uusan hafanin ayaa loo baahan yahay annaga waxaan ku talinaynaa in muxuu ahaa nidaamka baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed ay soo doorteen inaan la khaldin rabitaanka dawladnimada iyo shacabka rabitaankiisa nidaamka dalka uu ku soconayo dalka dhibaatada haysata in muxuu ahaa waxaan aan qorannay aan ixtiraamno anagana aan ixtiraamno oo muxuu ahaa nidaamka sharciga aan u hoggaansano oo dadka Soomaaliyeed u adeegna loo baahan yahay muxuu ahaa in dadkii intii loo dhaxeeyo kulligoodu hal shay loo wada sheego ay fooda isqabsadaan ma fiicna shaqada guddoonka ayaan rabay inaan aad u cadeeyo oo ah guddoomiyaha markii quorum uu dhan yahay ayuu muxuu ahaa shirkii quorumka baarlamaanka tiradii la rabay guntanka uu ku qabsoomayay ay dhan tahay inuu sheego quorumka waa dhan yahay shirka waa noo furan yahay ajandada inuu daadihiyo markii cod la qaado tirada badatay
inuu sheego uu yidhaahdo inta badan tiradaas intaa la eg waxay yidhaahdeen haa tiradaasna maya sidaas darteed waxaasaa la ogolaaday go-aanka baarlamaanka inuu ku dhawaaqo shirka markuu dhammaado inuu yidhaahdo shirka waa noo xiran yahay hoolka markii laga dareero dadkiisa inuu limad ahaado uusan muxuu aha go-aamo soo saarin oon baarlamaanka gaarin uusan waraaqo qorin baarlamaanka aysan ka soo bixin go-aan baarlamaan aysan ahayn aqlabiyadda baarlamaanka wixii ay sheegtay keliya afhayeenka baarlamaanka la yidhahda ayuu afkooda ku hadlaa waxaan ahayn buu walaalkeen galay dadkii waa ka cawdeen mooshin bay ka keeneen annagu mooshinkaas hormuud baan ka nahay deegaankii walaalkeen jawaari uu ka yimid haddaan ka soconno shacabkayaga iyo muxuu ahaa xildhibaanadayda iyo dhammaan muxuu ahaa intii ra'yigaas taageersan oo Soomaaliyeed hormuud baan u nahay waxaan rabnaa walaalkeen inaan la talino marka koowaad marka labaadna shacabka Soomaaliyeed inaan u cadeyno inaan annagu muxuu ahaa aan nahay dadka ay ka timid inuu muxuu ahaa aan taladeena uu diiday aan qaban weynay oo ay tahay inaan codkeena ku biirino oo aan muxuu ahaa gudoomiyaha ka fariisino baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa walaalayaal xildhibaanaha shaqadaas noo taalo adag wada jir baan rabnaa inaan u shaqeyno waxaan rabnaa inaan horumar dalka gaarsiino in baarlamaankeeni oo hooyada hay'adaha dawladda qaranka ah in muxuu ahaa baarlamaan degan oo nidaam ku socda oo muxuu ahaa gudoonka ay doorteenna mid u dhaxeeya oo dhaxdhaxaada uu yahay inuu noqdo ayaan u baahannahay sidaas daraadeed anaga garab baan idin nahay